بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه، وما بعد. أيها الإخوة والأخوات walaalihii mubaarak shaab baan tawxiidii soo bandhigayeen malabka waxaa ku filan ammaan ilaahay caza wajalla inuu qur-aankiisa ku sheegay. ilaahay wuxuu yidhi yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuh fiihi shifaa'un linnaas. sidoo kale nabigeena sala allahu calayhi wasalamna inuu sunnada ku sheegay. nabigeenana sala allahu calayhi wasalam sunnada wuxuu ku yidhi haddii ummaddeeda caafimaad ay helayaan waxay ku jirtaa saddex. mid ka mida muxuu dhahay nabiga sala allahu alayhi wasalam? malab la cabo. marka waxaad arkaysaa kitaabka ilaahayna inuu ilaahay ammaanay, nabigeena sala allahu calayhi wasalamna inuu ammaanay. malabka fawaa'idiisa aaday u badan tahay. dhakhaatiirta waa ka hadlaan, culamada muslimiinta waa ka hadlaan, bal xataa waxaa cajiiba xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam assana wassanuut, markuu nabigeena dhahaa jirro kastay daawo u yihiin. culamada muslimiinta qaar waxay dhaheen assanuut waa malabka, culamada qaar waxay yidhaahdeen assanuut waa malabka, yacni jirro kasta waa u daawo. dhakhaatiirta casrigeena maanta jooga waxay yidhaahdeen malabka waxyaalo badanaa ku jira, aashita kala duwan oo jirkeena u baahan yahay ayaa ku jira, brotiin kala duwan oo jirkeena u baahan yahay ayaa ku jira, carbohydrate, fiber, sonkor, glucose, fructose, sucrose, maltose, galactose, phosphor, calcium, bir, magnesium, sodium, potassium, zinc, naxaas, magnesium, selenium, fluoride, folate, intaasoo dhanaa ku jira. waxaa kaloo ku jira fitamiinada B1, B2, B3, B5, B6 iyo C ayaa ku jira. fawaa'idiisa allahuma baarik waa badan tahay. jirooyin badan wuu ka takhallusi karaa. maxaa ka mid a jirooyinkaas? hargab, waxaa ka mid a cholesterol, hormoonka la yiraahdo insuliinka kor ayuu usoo qaadayaa hadduu daciif kugu yahay. caloosha waa u fiican yahay. caadada dumarka wereerisa iyo xanuunadeeda waa u fiican yahay. sidoo kale jirooyinka wadnaha ku dhici kara wuu ka hortegi karaa. xiidmaha dhiiga qaada wuu nadiifin karaa. waxyaalaha kale oo laga heli karo, sankarowga waa u fiican yahay. dad badan waxaa laga yaabaa sankarow qaba inay dhahaan amuu idilaa, amuu sankorta kor igu kiciyaa. maya, sankorta waa u fiican yahay. sankorta waa u fiican yahay, laakiin waa inaad garanaysa qiyaastaad u baahan tahay. waa inaad dhin dhakhtarkaada kala tashitid oo dhahdid dhakhtar malabaa rabaa inaan qaatee, qiyaas sankorteeda kor aan u kicinaynin oo ka takhallusi karta ii sheeg. dhakhtarka marka sankortaadiina wuu yaqaanaa, cabirkeedii wuu hayaa, malabkana wuu kuu sheegayaa cabirka iyo qiyaasta aad u baahnaan doontid insha allahu tacaala, waadna ku fiicnaanaysaa. infekshinada waa kii ka takhallusa. microbyada jirka soo gala wuu ka soo saari karaa. selska limfatiga ah xoog ayuu siinayaa oo wuu siyaadinayaa, awoodna wuu siinayaa. limfatiga jirkeena aad ugu badan yahay. bakteeriyada wuu ka soo saari karaa jirka oo wuu ka takhallusi karaa. xiidmaha caloosha waa u fiican yahay. malabka marka lama soo koobi karo faa'iidadiisa, aad iyo aad u qiimo badan yahay. waxaa weeyaan ka faa'iidaysta, isticmaala oo caba. xataa waxaa la yidhi dhakhaatiirta qaar qofka dumarka xaamilkaa way isticmaali kartaa, gabadha naaska nuujinaysa sidoo kale way isticmaali kartaa. dhiigkarka hoos u dhigaa. haddii lama soo koobi karo, waa badan yihiin fawaa'idiisa, ha laga faa'iidaysto. waxaa ugu cajiibsan oo ku arkay aniga shakhsiyan dhaawac wejiga iga gaaray oo ii dilaacay wejiga, ayaa nin dhakhtara kala tashtay maxaan samayn karaa. dhakhtarkii wuxuu igu dhahay subax walba malab mari meesha dhaawaca ah. subax walba saa u marinahayay murixii waa iga dhammaaday, dhaawacii waa iga tegay, wejigayga normalkiisu kusoo noqday. walxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, sida weligiis dhaawac inuuna gaarin. laakiin hal mid kalena waa ku daraynaa. malabka kee ugu fiican? malabka waxaa ugu fiican midka orgaaniga ah oo la karkarin oo rowga ah ayaa ugu fiican, oo hal nooc ah. magaaladee, wadankee, meesha adiga degan tahay, magaalada adiga joogtid malabkeeda ugu fiican mar walba. dadka qaar waxay ku leeyihiin waxaa ugu fiican sidir, waxaa ugu fiican manuuka, waxaa ugu fiican. maya, ubaxuu cunay ku xiran tahay. ilaahay muxuu yidhi yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuh. kalar kastoo ka soo baxa shinnida caloosheeda faa'iida ku jirta. malab jaallo ah ha noqdo, malab guduudan ha noqdo, malab madow ha noqdo, mar walba malabkaasita qiima ku jirta, faa'iiduu leeyahay, daawo waaye. laguma dhihin malab reer hebel iyo laguma dhihin malab magaalo heblaayo. qur-aankana kuma jirto, sunnadana kuma jirto. laakiin malab ayaa lagu dhahay saafi ah, organic ah, row ah, aan la karkarin. haddii la karkariyo malabka qiimihiisa wax badan u lusgaraynahaya ka tegahaya. marka waxaa lagaa rabaa malab saafi ah oo run ah oo nadiif ah oo la karkarin inaad cabtid. qaado subaxii, qaado duhurkii iyo qaado habeenkii way ku anfacaysaa. kalarkane maa fi mushkil. kalar caddaana, kalar jaallo ah, kalar guduud ah, kalar madowga waa isla meeshii. mid walbana qiimo ayuu leeyahay.
كهرب تلعب وحبها كفكرين والله ملبك نيوزيلند إيه ملبك موزمبيق إيه ملبك يمن إيه ملبك وحبها كفكرين ملب يدا ودمدا كلا دوان إيه دولوكا كلا دوان ملبك صدح ميالو كبحا أما بور أما جيدو أما قريها دادك إيه دقيهين أكتوضو كبحا ملبكاس بور الليدا وحو وقفي عينها كوا كلا ما فريستو سندك أودن وحو أهانا هي بي عمل لبدا كلاني أما جيدها أما كبحا دولوكا عادية أما قريها دادك إيه دقيهين إيه شنيدا كساميسو ملبكاس حلقة قوابها وفريستا فردق او فريسانا يعني ماها فرد بدن ee waxoogaa yuru fariisanaya oo waxa weeyaan hadii biyo kulul la dhex dhigo maaha in la karkariyo biyo kulul kaliya la dhex dhigo sidiisu ku soo noqonaya wuxuu noqonayaa badhar camal marka waa qiimo badan yahay halaga faa'iideysto barakallahu fiikum dad badan waxay ku leeyihiin sonkora lagu daray eesh faa'iida sonkorta lagu daray maxay u taray shinida way duulay magaaladeeda meeshii rabtay galaysaa meeshii rabtay soconaysaa iyada cuntadeeda raadsanaysa soo noqonaysa markaasay malabkii ku sameynaysaa yakhruju min butuniha sharabu ilaahi ku dhaca caloosheedu ka soo baxay way soo sifaysay way soo nadiifisay way ka soo shaqaysay bal xoogaa dib ugu noqon dhaqaatiirta waxay ka dhahaan shinida suuradan ayaa quraanka waxa lagu dhahay suuratu nahl marka shinida shaqadeeda wax sahlan ma ah ilaahay uu waxyoonahay subhanahu wa ta'ala oo u sheegay waxay sameynayso wuxuu naga rabaa rabbigaas ta'azza wa jalla anaka hadaba ina isaga jeclaano oo kaligiis aan wax weydiisano غيرkiisana wax la weydiinin لا شك واجب إنه تهي صوبت إلهي سبحانه وتعالى شنو وحو أمر بالفيرية وحو وحيودي بالفيرية ووح أنك أنفعها ووح أنك أوباهنا جركي نوباهية لقما مارمو داودا كجرتا ملبكا وداو آد عجيبو بالفيري شندان شقلا إقوات شقا فضط معها ورشد صعطة واكل مركا بارك الله فيكم يعني سنكرا لسيئي كان لسيئي وحاصل انت اسكد حفتد ملب صافئة او أورجانيك او الرو اسكعون وحانا اوفي عن والبا مقالة هذا متكاد كهليسد او مقالة هذا كبحا حافظة كوغو دقن تولة كوغو دقن مقالة برنان كذا بادية هذا مر والبا ملب كاسيتو وملب كوغو في عن او كأنفعه واي وحبها راسنين ستيت كلا اي مقالة كلا كافق وضن كلا وحبها راسنين مركا ملبكا آدي هذا قيمة بدنيا هي هلقا فايدستو بارك الله فيكم والله تعالى أعلم ولا لهين مبارك شاب فضلا هذاك فايدستي ولا لها لو ذاك كل قد فايدستان السلام عليكم ورحمة الله